السلام عليكم وولالكين عبد الله محمد برولة إن شاء الله ما تحنين سو قد منيا تمن قضب أو إسو جرا تلوين إيو حكمة داو شوعا shakhsiyadda xoogga leh micnaheeda ma aha inaad ku hadasho hadallo liita ama afxumo. Haddii aad shay doonaysid ka dalbo rabbigaaga, si daran u dalbo, dalabkaaga ku celceli oo ha ka daali. Waxaase hubaal ah inuu alle kaa ajiibayo, waayo alle wuu ku maqlayaa marka aad barido, waa ku arkayaa marka aad dhaqaaqayso, waana ogyahay waxaad samayso, halbowlahaagana waa kaaga dhow yahay. saamixidda micnaheeda ma aha inaad ku celiso isla tijaabadii midkii aad saamaxday. Dhacdooyinka shalay waa dersiga maanta, sidaa darteed ceeb ma aha in maanta dhagax ku hor kufto, ee waxaa ceeb ah isla dhagaxii shalay maantana aad ku hor kufto. Haddii alle ugu talagalo inuu ubax ku dhex ubaxoobo dhalo cariiri ah dhexdeeda, wuu ubaxoobayaa. Sidaasi si la mid ah dhammaan arrimahaaga rabbi u daa oo isaga tala saaro oo dheh yaa allah. Basharka waxaa ugu daciifsan qofka ku qanca hadalka dadka daliil la'aan ka hor inta uusan naftiisa u samaynin qanaaco. Ahaw adiga sida aad tahay, kana digtoonow har qiimo la in aad u noqoto qof kale. taxadar oo taxadar, waxaad ogaataa in taxadarka uusan kaa badbaadinin qadarka alle. Ceeb ma aha inaan kala ra'yi duwanaano, laakiin waxaa ceeb ah in aan isdagaalno. qaladka ayaa la nacaa, laakiin mala naco qofka qaladka sameeyey. marna qofka ha fiirin soonkiisa iyo salaadiisa, laakiin waxaad fiirisaa runtiisa iyo ammaanadiisa. anagu waxaanu nahay dad uu alleh ku ciseeyey islaamka. haddii ciziga iyo sharafta aanu ku raadinno alle khayrkii, wuu ina dullaynayaa alle subxaanahu wa tacaala.